عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. On the authority of the mother of faithful, Aisha, who said, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, he who innovated something in this matter of ours, Islam, that is not of it, will have it rejected by Allah. Bukhari and Muslim. In another version in Muslim, it reads, he who does an act which we have not commanded will have it rejected by Allah. hooyada mu'miniinta Ummu Cabdillah Caaisha Allah raali ah ka noqde waxay tiri: rasuulka Allah naxariis Allah korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, qofkii arrinteena islaamka wax aasan ku jirin ku soo biiriya camalkaas waa laga diiday. Bukhaari iyo Muslim wuu ku jiraa. Kitaabka Muslim waxaa ku yaal isla xadiiskan oo wax yar ka duwan, oo nebigu wuxuu yidhi, ciddii ku kacda fal aan arrinkayaga waafaqsaneen waa la diidayaa.